diyaarada ay ciidanka cirka Soomaaliya lahaan jireen inay xaraashayaan iyo diyaarada kala badan waa arkay meeshaan ku arkay cid idin la soo xiriirtay oo idin sheegtay in hawshan la qaban doono maya ma jirto safiirka noo fadhiya Kenya ajari xasan Allah ka siiyo nin wadani ah oo asagu dareenkiisa Soomaalinimo igala soo xiriiray ma cid kale igala soo xiriirtay asaga markuu kala soo xiriiray muxuu ku sheegay asaga saako isoo waxay markaan arkay kadib uu soo waay waa ka wada hadal xogta ku sheegay maxaa kamid ah maya horta waxa ka waraysa in la ogaado xogta diyaaradu maxay yihiin maxay xageeyay ka yimaadeen maxay ahaayeen horta ka horeysa moogta asagu dareenka ila wadaagay wuu ogaaday waxaan maxaa laga qaban karaa iyo markaas aan fikirkayga u sheegay asagu intaas ay diyaaradaha marka Kenya yaal oo ciidamada cirka ee Soomaaliya ay lahaayeen waa imisa aniga intaan ogaay hal diyaarad waaye haddii aan ku sheego diyaaradan markii ay dawladda dhacay 5 January 1991 bay diyaaradan la geeyay meesha waxaan ku xasuustaa anigu Somali Airlines ahaa roon baan ka soo kacnay aniga iyo kabtan jaamacoole Djibouti baan ku degnay markaan Djibouti ka soo kacnay aan raadiyaha ku jirnaa waxaan maqalnay diyaarad ciidamadu leeyahay oo ka kacday xamar oo Kismaayo u socod bacdama aniga markii hore aan ciidanka cirka ahaa kabtanada bilootiyaal filan la hadlay waxaan xamar ka waran fiicanahay Kismaayo tagayna waa soo noqonaynaa galabtiina waxaan BBC ka maqlay diyaaradda inay ku degtay Nairobi marka sidaas ay Nairobi ku timid diyaaradda markii hore diyaaradda saasay Nairobi ku tagtay kadibna meelaha la iska dhigay hadda xaaladda ay diyaaradda ku sugnayd wax waran ma ka hayseen aniga dhowr baan Nairobi tagay waa ku arkay meel duur oo airportka geeskiisa oo shirkadda African Air meesha degtay diganta xafiiskeeda yahay iyo runwayga meesha laga dego inta waxay soo duur inay taan laba u jeeday marka adigu haddaad baabuur inta meel dhigto uga tagtay 30 sano yaalo baabuurkaas waa wax la tuuray sama marka waa wax unsaasoo kale oo meeshaas yaalo waxa la gadayana waa biraha waa scratch biraha loo gadanaa maahan diyaaradahan maaha waxa loo iibinayo waagaas marka dhibaata taagneed oo dagaal sokeeya soconayay kadib dawladda Soomaaliya la dhisay shaqadii baad bilowdeen haatan adigii baaba ah taliyaha ciidamada cirka ee Soomaaliya maxaadan dib ugu laaban oo aadan ugu eegin diyaaradihii ee qaran ka maqnaa dadkii joogay jirtaa laakiin aniga hadda 2014 baan imid diyaaradda 30 sano meel taale 25 sano meel taalena waxay abadur la dhigay oo aan dayactir helin hatta hadday dayactir tirso wadan life ma ahaan lahayd hatta hadday jirto wasad lageeyo la geliyo diyaaradahan life ma ahayn hadda iska dhaaf diyaarad nuur la dhigayo laga tagayo oo baabaaday marka waa wax bir la kadaayo waa laakiin waa ku habooneed markii hore diiba inka may kastay dhibaatada ahayd xagee la geynaya markii anaga waxaan isku haysanay Soomaaliya ma ognahay marka diyaaradaha kale ee ciidamada cirka Soomaaliya ay lahaayeen ama xitaa kuwii shirkadii Somali Airlines dawladda ay lahayd ee ka maqan Soomaaliya tiradooda wallahi horta aniga markaas ciidanka cirka waa ka timid Somali Airlines pilotyaalkeedan kamid ahaa laakiin ciidanka cirka diyaarada waxaa jiray loo qaaday Talyaaniga oo la geeyay oo in la soo hagaajiyay loo geeyay helicopter iyo kuwa kale oo fuuska la geeyay ayagan sidoo kale loo geeyay laakiin wixii haddaan laga dabatiin meeshay ku baaba'ayaan marka waa bir baabaaday sida taas oo kale saan u arko Somali Airlines waxa ay leedahay markaas waxay ahayd 4 diyaaradood laba ay cusub yihiin ma cusbeena mid baa cusbeed Airbus warshada ay u loo sameeyay Somali Airlines loo sameeyay Soomaaliya loo sameeyay Soomaaliya ku qoran waan anagu maalintaas keenay xamar kadibna Dubai tagtay Dubai ka aaday Frankfurt jarmalka muddo dheer taalay kadibna waxaan maqalnay in la gaday oo la xaraashay oo Yemeniya ay gadatay kadibna Yemeniya waa laga sii gaxay marka taasna dadkii oo mas'uuliyadaas lahaa ayaa ka warqaba meeshay ku dambeysay